wararkii ugu dambeeyay diyaaradaha helicopteriska ah ee Ruushka kaga burburay gudaha dalka Ukraine inta dagaalada ay socdeen ciidamada dawladda Ruushka oo ku dhawaad 15 kiiloomitir u jirsaday magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine su'aal ku aadan halkee ayay ka baxeen nidaamkii difaaca hawada ee Mareykanka labadii toddobaad ee ugu dambeysay uu geynayay gudaha dalkaasi Ukraine macluumaad ku saabsan NATO oo ku dhawaaqday in marnaba ciidamo aysan u diri doonin dalka Ukraine laakiin ay difaaci doonaan wadamada kale ee gaashaanbuurta NATO madaxweyne Erdogan miyuu aqbali doonaa codsiga ay u soo jeedisay dawladda Ukraine ee ah in dagaalka uu ku soo biiro hadal madaxweynaha dawladda Turkiga uu jeediyay galabta ayaan barnaamijka kugula wadaagi doonaa in ka badan 200,000 oo ciidamada dawladda Ruushka la sheegay in ay bilaabeen howlgalkoodii dhanka lugta ahaa taas oo ka dhigan in ay gudaha u galayaan dalka Ukraine ciidamada la arkayay iyaga oo rasaas ka daldalanaya goobihii ay dagaalada ay ku qabsadeen iyo guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay ee Ukraine iyo xiisadda ka taagan ayaan qaybtan ku falanqeynaynaa aad baad u mahadsan tahay soo dhawo mar kale wararkii ugu dambeeyay ayaan ka hormaraynaa waxaan eegaynaa marka hore gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaa waxa uu yiri marnaba ma qorsheynayno inaan ciidamo aan u dirno dalka Ukraine waxaan dardargelinaynaa qorshayaashiyaga ee ku aadan in aan difaacno wadamada kale ee gaashaanbuurta NATO ayuu yiri Ukraine NATO kama tirsana waxay hadda dagaalka u gashayna waxay ahayd in NATO ay ku biirto Mareykanka iyo wadamada kale ee NATO waxay u muuqanayaan marka inay bixinayaan jawaab marnaba aysan ku qanci doonin shacabka dawladda Ukraine dad badan oo Ukrainian ayaa iminka qaxootiga ugu badnaa noqday wadamada midowga Yurub waxay ku dhawaaqeen inay soo dhaweynayaan qaxootiga midowga Yurub doonaya inay ku soo biiraan ama ay soo galaan wadamada midowga Yurub aan iraahday waa qaxootiga ugu badan ee Ukraine ka cararaya maanta oo Khamiisa tani waa berigi saaka dagaaladii ka bilowday deegaanada dhanka xuduudda dhaca wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Ruushka ayaa waxay baahisay macluumaadka ku aadan in ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen gudaha dalkaasi gaar ahaan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaana ay sheegtay inay ku dhawaadeen magaalada caasimadda oo dhowr iyo 10 kiiloomitir hadda ay u jiraan taasi waxay ka dhigan tahay in ciidamada Ruushka si toos ah dagaalkaasi ay qayb ay kaga yihiin tani waa berigii saaka iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amray in ciidamadiisa howlgal gaar ah ay ka fuliyaan dalkaasi Ukraine sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ukraine ayaa soo bandhigtay laba ka mid ah ciidanka dawladda Ruushka kuwaas oo la sheegay in dagaalka lagu qabtay magaalada Kiev duqeymo xooggan ayaa ku soconaya tan iyo maqribnimadii caawa ilaa galabta duqeymahaas waxa inta badan lala eeganayaa xarumo muhiim ah oo dawladeed muuqaalada waxay muujinayaan in la bartilmaameysaday xarunta wasaaradda gaashaandhigga saldhigii ciidamada cirka ay lahaayeen meel ku dhow xarunta hay'adda nabad sugidda ama sirdoonka qaranka ee dawladda Ukraine iyo xarumo kale oo dawladeed marka waxay u muuqanaysaa Kiev in ay martigelinayso duqeymihii ugu xoogganaa ee ka dhacaya gudaha dalkaasi Ukraine dunida hadda waxa ka bilowday in la isweydiiyo aaway nidaamkii difaaca dhanka cirka aha ee muddooyinkii ugu dambeeyay Ukraine lagu daabulayo oo Mareykanka Ingiriiska iyo hubkii kala duwanaa xitaa Faransiiska qayb uu ka yahay ay siinayeen dawladda Ukraine marka kaartada lala ciyaaray dawladda Ukraine ee dagaalka saaka lagu qaado waxay ahayd marnaba mid aysan ka warhayn ayuu ahaa dagaalka tan labaad waxay tahay madaxweyne Vladimir Putin wuxuu amray in la bartilmaameysado goob kasta oo noqon karta goob ay gurmad ay ka helaan ciidamada ammaanka ee dawladda Ukraine wuxuu burburiyay in ka badan 74 xarumood oo ay lahaayeen sida la sheegay ciidamada cirka iyo kuwa dhulka xarumo kayd hub ahaa waxa la arkayay ciidamada Ruushka oo hub badan daldalanaya taas oo ka dhigan inay saldhigyo waaweyn ee gacanta